23 Maarso 2019 ayaa halkan maanta aan taaganahay oo wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed u soo shaqo tageen ayaa waxa soo weeraray kuwa caadaystay kaliya inay wax dilaan ama wax dumiyaan shaqadooda ay tahay inay qarannimada iyo dadnimada Soomaaliyeed baabiyaan ciidan Soomaaliyeed oo naftood hurayaal ah ayaa u soo gurmaday oo badbaadiyay intii ugu badneed ee ku jirtay wasaaradda laakiin wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo isku duuban ayaa ku dadaalay xataa markii ay ugu dhibka badneed oo xabaddu ku socotay inaanay ka tagin midnimada iyo Soomaalinimada dad badan oo Soomaaliyeed oo ciidanku ugu horeeyay ayaa u soo gurmaday qaar kamida waa ku naf waayeen oo kamid ahaa wasiir ku xigeenkeena Saqar Ibraahim iyo intii kalaba waxaan leenahay marka ugu horeysa Ilaahay jannada ha ka waraabiyo hana u naxariisto dad badan oo halkan jooga maanta waxa laga yaabaa inay arkaan wasaarad la dhisay oo la isugu yimid laakiin munaasabadan ahmiyadeedu way ka weyn tahay ahmiyadda munaasabadan ay leedahay waxay tahay waxay kala qeexaysaa kuwa wax dumiya iyo kuwa wax dhisa kuwa mustaqbalka raba iyo kuwa mustaqbalka diidan kuwa Soomaalinimada raba iyo kuwa aan la garanayn waxa ay rabaan kuwa isdhiiba iyo kuwa aan isdhiibin kuwa baabi'iyay rajada ama raba inay rajada baabiyaan iyo kuwa rajada iyo qalbiga dhisa halkan maanta iyadoo dad Soomaaliyeed iyo deeq-bixiyaal dawladda Soomaaliyeed garab taagan oo hormuud ka yahay wasiirka iyo shaqaalaha wasaaradda rag iyo dumarba in qoladii islahayd dadka Soomaaliyeed niyadooda jabiya loo diray fariintii hore ka culus waayo wasaaraddii waxa loo dhisay si ka wanaagsan sidii ahayd markii ay soo weerareen haddii ay islahaayeen marka dadka Soomaaliyeed ayaa laga naxiyaa ama la qalbi jabiyaa ama hiigsigooda hoos loo dhigaa waxaan leenahay fariintii iyada ahayd waxaan idinkugu bedelnay fariin ah dadka Soomaaliyeed isma dhiibaan ma niyad jabaan lagama adkaado hiigsigooda kama tagaan marka ugu dambeysana iyaga guuleysanaya sida taariikhda ummadda Soomaaliyeed ay sheegtay halkan waa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada boqolkiiba 75 dadka Soomaaliyeed waa dhalinyaro waana shaqo la'aan waxay ka turjumaysaa taasi ahmiyadda ay wasaaradani dalka u leedahay haddii waagii hore fikirku uu ahaa wasaarado kale muhiimadda ugu weyn oo dalku yeelan doono waxa ay tahay in shaqo abuur laga shaqeeyo sababtoo ah laga bilaabo maalinta berito ah iyo usbuucyada soo socota sawirka dalka Soomaaliya iyo dunidaba waxa qabsan doona dawlad Soomaaliyeed oo ku guuleysatay deen cafiskii heli doonta dhaqaale fursad ay u noqon doonto inay dadkeeda shaqo u abuurto dalkeedana dib u dhisato sidaas daraadeed ayay wasaaradani muhiim tahay sidaas daraadeed ayay fariintani muhiim tahay waxaan halkan rabaa maanta inaan dadka Soomaaliyeed u sheego meeshan quruxda badan oo aragtaan qaar baa ugu tala galay in laga kala tago qaar kale oo gabdho Soomaaliyeed iyo wiilal Soomaaliyeed oo halkan fadhiya ay ugu horeeyaan waxay yiraahdeen dalkeenna meel uga ma socono dadkeennana
annaga hormuud u ah Soomaaliya ha noolaato